Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabteena youtube-ka ku xiran baarka 252 waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa ciyaari doontaa. Anigu waxaan ahay Cabdirasaaq Maxamed Axmed. haddaa janaalka baarka 252 ku cusub taas subscribe saaro si ay kuusoo gaaraan muuqaaladana soo socda. muuqaalkan sheer dhaha mahadsanidin. liiska xidigaha kooxda baarka ee kala hortagayso caawa Atletico Madrid oo lagu dhawaaqay iyo Arthur Melo oo weli ku jira shaxda baarka. waxaa la shaaciyay liiska xidigaha kooxda Barcelona ugu qaybgalaya kulanka adag caawa wajahayaan naadiga ka dhisan caasimada Spain ee Atletico Madrid. kulankan oo qayb ka ah horyaalka La Liga ee Spain ayaa waxaa liiska xidigaha baarka dib ugu soo laabtay Roberto Busquets iyadoo weli liiska baarka uu ku jiro Arthur Melo. liiska kooxda Barcelona ku wajahayso Atletico Madrid oo dhameystiran: goolahayaasha Stegen, Neto, Bena; daafacyada Semedo, PK, Lenglet, Araujo, Firpo, Alba, Umtiti, Roberto; khadka dhexe Rakitic, Busquets, Arthur, Vidal, Collado, Munjo; weerarka Suarez, Messi, Griezmann, Martin Braithwaite iyo Ansu Fati. xogta kulanka caawa Barcelona vs Atletico Madrid tartanka horyaalka La Liga. saacadda ciyaarta la daawan doono waa 5 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika. garoonka Camp Nou Stadium ayaa lagu ciyaari doonaa. baarka waxaa kulankan ka maqnaan doonaan Frenkie de Jong oo kubka ka dhaawacan iyo Ousmane Dembele oo dhaawac muruqa ku maqnaan doona kulanka caawa. shantii kulan u dambeysay ee wada ciyaareen Barcelona iyo Atletico Madrid, 3 waxaa badisay Barcelona, 1 jeer waxaa badisay kooxda Atletico Madrid, 1na barbara ayaa wada galeen. soo saadaal kulanka adag ee caawa Barcelona iyo Atletico Madrid lagu ciyaari doono garoonka Camp Nou Stadium 5 saac oo habeenimo ayaa la daawan doonaa. haddaa janaalka baarka 252 ku cusub taas subscribe saaro. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.